kalfadhigii afraad ee kulanka baarlamaanada Afrika ee ka socda magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika ayaa maraya heer gabagabo ah iyadoona kulanka maanta lagaga dooday arrimaha ammaanka ee qaaradda Afrika. xildhibaanadii soo xaadiray kulanka baarlamaanka Afrika ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xaaladaha ammaanka ee dalalka Afrika qaar oo ay colaado saameeyeen iyadoona macluumaadkii ay soo diyaariyeen guddiga ammaanka ee xildhibaanada Pan Africa ay Soomaaliya si gaar ah u taabanaysay. waxaana xildhibaan Cabdicasiis Cabdullaahi Maxamed Cabdixukun oo dhanka Soomaaliya matalayay uu ka jeediyay khudbad uu kaga hadlay xaaladaha amni ee gudaha Soomaaliya. qaar ka mid ah xildhibaanadii ka qayb galay ayaa talo ahaan u soo jeediyay in Soomaaliya laga caawiyo dhanka tababarada ciidamada booliska iyo kuwa militariga lagana saacido sidoo kale dhanka siyaasadda. markii uu soo dhamaaday shirka ayaa waxaa telefishinka caalamiga ah ee Universal la hadlay xildhibaan Cabdicasiis Cabdullaahi Maxamed Cabdixukun oo ka warbixiyay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ay xildhibaanada Pan Africa isla garteen talo ahaanna u soo jeediyeen in xoogga la saaro arrimaha amniga iyo xaaladaha amni ee qaaradda Afrika. maadaama amni laga hadlayna annagu dadka dalka Soomaaliya number 1 buu ka yahay mar walba marka qaaradu inta isu timaado amni laga hadlo Soomaaliya number 1 bay ka tahay marka xaaladaha amniga laga hadlo. reportkii guddiga amniga ee baarlamaanka Afrika ay keeneen markay ugu yaraato ilaa 3-4 bayt baa waxaa ka hadlaya Soomaaliya. runtii annagu wixii markaas aanu aragnay inay maaragtay xalka Soomaaliya ama maaragtay xasiloonida Soomaaliya sidii lagu heli karo baan ka hadalay tanana ka jeedinay. talooyinka aan soo jeedinay waxaa ka mid ahaa in ciidamada Soomaaliya la tababaro, ciidamada Soomaaliya la dhiso, ciidamada dawladda dhexe in taakulo la siiyo oo maaragtay gacan la siiyo, ciidamada maxaa la yiraahdaa maamul goboleedyada in la dhiso oo ayaga maamul goboleedyada laftoodana laga caawiyo dhinaca booliska iyo dhinaca amniga laftooda. talooyinkaas aan soo jeedinay waxaa kaloo soo jeedinay Soomaaliya inay runtii u baahan tahay in dhinaca siyaasadda xataa in laga caawiyo oo gacan laga siiyo dhinaca amni kaliya maaha dhinac walba markaas aan kulli aan u aragnay inay tahay in laga caawiyo baan ka hadalay. si kastaba waxaa baaqday doodii ku saabsanayd in xildhibaanadu ka doodaan arrimaha jinsiyo nacaybka ee dadka Koonfur Afrikaanka kula dhaqmaan qowmiyadaha kale ee Afrikaanka ee magangelyada ku joogo dalka South Africa iyadoona madaxweynaha Pan Africa Mr. Roger Coderdan uu codsaday in dib loo dhigo maadaama ay socdaan baaritaano sidaa darteedna aysan doonayn inay ka hor dhacaan. Mustafa Xasan, wararka Universal, South Africa.